ujeedda eedda xeer ilaalinta tilmaamaha iyo magaca buuxa ee dhibanayaasha dowladda Puntland shareecada islaamka iyo shacabkeeda marxuun ekis nabadoon cabdiqani xasan xuseen waloore tilmaamaha iyo magaca buuxa eedaysanayaasha abuukar cabdi cismaan cabdullaahi suufi 52 jir ah ina khadiijo barre cali ku dhashay qoryooley degan gaalkacyo salaad cabdullaahi cabdi aadan 28 jir ina xamiido cabdinuur ku dhashay baydhabo degan gaalkacyo maqane cabdullaahi jaamac kuwaas oo ku eedaysan xeer lambartayn qodobka 2 farqadiisa 1 iyo 2 shareecada islaamka iyo qodobka iyo xeerka loo gafay xeer lambartayn qodobka 2 farqadiisa 1 iyo farqadiisa 2 faahfaahinta eedda xeer ilaalinta 16 bishii 6 2022 abaaro saacadu markay ahayd 7:49 daqiiqo oo fiidnimo waxaa lagu dilay magaalada gaalkacyo xaafadda garsoor masaajidka almacmuur marxuum ekis nabadoon cabdiqani xasan xuseen waloore waxaa gacanta dilka lahaa eedaysane salaad cabdullaahi cabdi 28 jir ah ina xamiido cabdinuur waxaana u diray oo la socday amiir abuukar cabdi cismaan oo ku soo daray argagixisada al-shabaab gacan ku dhiiglaha una dhiibay bastooladda uu ku dilay marxuumka tusayna marxuumka ekis nabadoon cabdiqani xasan xuseen waloore kuna amray inuu dilo asagoo weliba la socda eedaysanaha koowaad abuukar cabdi cismaan goobe 52 jir ah ina khadiijo barre wuxuu ku biiray ururka argagixisada al-shabaab bishii 4 2021 ururka al-shabaab waxaa ku soo daray maqane cabdullaahi xaaji wuxuuna ka soo wacay tuulada booca soona beledweyne ah wuxuuna ku amray inuu qaarajiyo marxuum cabdiqani xasan xuseen waloore waxay ku hormareen dilka marxuum ekis nabadoon cabdiqani xasan xuseen waxaana fuliyey dilkaas abuukar goobe iyo salaad cabdullaahi oo gacanta lahaa eedaysanaha labaad salaad cabdullaahi cabdi 28 jir ina xamiido cabdinuur ku dhashay baydhabo degan gaalkacyo wuxuu ku biiray argagixisada al-shabaab bishii 9 2021 waxaana ku daray eedaysanaha koowaad goobe ururka al-shabaab wuxuuna sheegay salaad inuu dilayo hadduusan fulin amarkiisa eedaysanaha koowaad goobe shirkadda qareennada ee anfac law firm and legal consultancy xafiiskeeda magaalada gaalkacyo
qareena oo ah Abuukar Cabdi Cabdiraxmaan iyo Salaad Cabdullaahi Cabdi anigoo ku difaacaya qawaaniinta iyo shariicada islaamka wixii ay ii sheegeen hadeerna aan marxanti ka nahay inteena joogta wixii afkooda ay ka yiraahdeen labada kala eedaysane oo lagu eedaynayo Allah u naxariistee marxuum Cabdiqani Xasan Xuseen waloore sida ii sheegeen Salaad oo lagu eedaynayo in uu gacanta lahaa oo ii sheegay waxa kale oo ka horeeyay wixii horta sifada lagu soo qabtay oo iska fiicanta in la faahfaahiyo sida xogta ay igu siiyeen shalay oo aan u sheegay in Ilaahay hortii warka ii sheegan aan maxkamadda horteeda ka sheegi doono ilaa dartiisna ku difaacayo waxa la qabtay ninka la yiraahdo Abuukar baa la soo qabtay muddo la hayay Abuukar xuquuqiyaadkiisa asaasiga ah sida la masin ama fursadii uu isku difaaci lahaa baaridii waqtigeedii uma helin saas darteed wuxuu yiri markaan la isticmaalay qodobka 150 waa garanayna xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed kadib ana ninkaas waxaan iska iri hebel ninka hebel baan iri markaan macnaha dii la igu khasbay inaan sheego wax aanan aqoon saas darteed hebel baan iska iri hebelkiina wuxuu noqday inuu yiraahdo ninkan salaadna sidaas la mid wuxuu iraanigu wax aan galay oo dambi ah oo aan leeyahay male sidoo hadda dadweynaha u sheegay uu ii sheegay marka cidii waxa wax ka duwan sheegaysa waxaan rabnaa iyada ay u taala in maxkamadda aan la sugno la wadaagno waxa soo haray Salaad iyo Abuukar Salaad iyo Abuukar waxay yiraahdeen maana gelin kiiska inkirku wuxuu ku fiican yahay inaan marxaati lagu hayn mar haddii qiraal laga hayo hore qiraalka dambe oo ihtimaalka beenta shariicadu ma qabataba waayo kii hore oo saabidka ayo garsooruhu oo qoray buu burinayaa kan dambe oo hadda meesha uu ka qirtay xukun saabid oo garsoor qorayna laguma jabiyo xukun ihtimaala culimadii oo dhan way joogtaa ujeedo ee kala noqosho tixraac xaashida ka soo baxday qaybta baarista dambiyada gobolka Mudug Gaalkacyo ee sumadeedu tahay RIF CID 320 ee la qoray 8 bishan kuna saabsan codsi ee kala noqosho ee lawayaasha kala ah Aways Ismaan Nuur 26 jir ah ina Ruqiyo Ali Aways labo Xasan Maxamed Ismaan Xasan Mushaari 16 jir ah ina Nuurto Cabdi Nuurto Cabdi kan saddexaad Aadan Xasan Aadan 38 jir ina Aamino Cabdi afar Cabdi Malik Yusuf Maxamed 35 jir ina Caasho Umar kuwaas oo ku eedeysnaa tuhun al-shabaab qaybta baarista dambiyada CID ee gobolka Mudug markay samaysay baaritaan dheer waxay cadaysay inaysan wax dambi ah u hayn lawayaasha sare ku xusan kana mid ahayn ururka xawaarijta al-shabaab haddaba waxaan kala noqday eedii loo haystay ee lawayaashaas sare ku xusan sidaas darteed waxaan maxkamadda darajada koowaad
ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus gobollada Mudug iyo Cayn ka codsanaya ee sharafta leh ka codsanaya inay xabsiga ka sii deyso xorriyadoodana loo celiyo ee laawayaashaas anoo u cuskanaya qodobka 112 xeerka inqaabta Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq waxay kale oo maxkamadda xorriyadda loo celisay aweys ismaan nuur aadan xasan aadan عدمال يوسف حمد كتيمات واحد دولية لوواي أو واحد هذا لوواي boqolkii boqol dawladda boqol waa taageersan yahay wax dambe ana ku haaya ma jirto wax li yeelana ma jirto yaa waa taageersan yahay xorriyadeyda waa haystaa saacadaan way ka bilow xorriyadeyda waa hal الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان للعالمين ولا عدوان للظالمين الحمد لله ما شاء الله دولة بودلاند aad baynu soo dhaweysay in qaasata ahaan dowladda Puntland aad baynu soo dhaweysay in maanta xornimo ka helnay xornimadeedana aad baa u taageersanaa alxamdulillah wax dhibaato iyo qajac iyo buuq mana gelin alxamdulillah aad baa u taageersanaa ma sha Allah xorriyadan maadaama helnay dowladda Puntland waan u mahadcelinaynaa xorriyadu waxa ka gaalsan ma leh أنا دولة أبني ولا سجى أبني أسترتس با معناها أونيك ليش كان أبني هدي له سجى وهن ونجوا يريد دان ونسي الحمد لله رب العالمين وتاجرنا وسوق ويننا إن شاء الله بإذن الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنت مقالة بطلان دولة خير الله كسنيا وما سنتهاي دي ما سنتهاي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان ما أنت لو فرنتي واسع له لكن أنت هكذا تعود لي دودي أو مغلس بدون هو مغلس أنت هكذا سينو تقولي 4 على شو معني واحد عدي ما هيشي يو مغلي مغال يو حاجة كدما يو صوت يا سحر عليه فأنت 4 على نقطة هاي كمان واحد